السلام عليكم كلنتي wanaagsan kusoo dhawow muuqaalkeenii labaad ee casharadii bilowga Photoshop-ka muuqaalkii hore haddaad soo daawatay dabcan waxaan kusoo qaadanay hordhaca Photoshop-ka ama wejiga hore ee Photoshop-ka baan soo qaadanay qaabka uu u shaqeeyo iyo waxyaalaha basic asaasiga ah muuqaalkanna waxaan ku qaadan doonaa workspace iyo panelska qaabka u shaqeeyaan workspace waa meesha lagu shaqeynayo ee documentigeena aan ku jarjaranayno ama maxaan ku raahday ku dhisanayno panelskuna waa waxa inoo haya featureska aan ku shaqeynayno marka muuqaalkeeni hore meeshaan inoo joogay filekan halka inoo ka muuqda na ka xir muuqaalkii hore weey dabcan marka interface-ka aad Photoshop aad joogtid waxa ku muuqan karta oo hadii default-ga aad joogtid waxa ku muuqda waxa halka kaga muuqan kara workspace-ka caynkaas waxa laga yaabaa inay ka bedelan tahay oo maxaan ku raahday nooc kale ay ka tahay si aad u bedeshid sidaad hore waxa tagayna sideen hore workspace Windows baan tagayna sideen hore saan ugu celino waxaan tagayna workspace waxaan ka dooranayna essentials oo default-ga dabcan saas inoo noqonaysa marka panel waxa la yiraahdaa tusaale ahaan hadda dhankan bidix fiiri tools soo jeed this is panel-kan waxa inoo haya tools oo dhan inoo haya oo ku taxan panel waa groupka toolska isu tagay featureskiisuna waxay yihiin in inoo hayo toolskaas halkiisina kaga cali dhanka kale oo midig ada fiirisay halka wax kaaga muuqda wax loo yaqaan tusaale ahaan colors waa panel swatch waa panel adjustments styles kullu waa panel kala duwan mid walba shaqo gaar ah qabto kuwan halkan ku jira hadaan iyagana click siino oo soo baxayaan dan ku celno way noqonayaan marka waxaan u baahanahay inaan dhisano workspace naga inoo gaara waxaan dhisi doonaa workspace halkan ka muuqata tusaale ahaan essentials oo soo furaya halka waxa training ma qulfanaya workspace halka kaaga muuqata baan dhisi doonaa oo qaabkan loo dhisay qaabka u samaysan tahay aan arki doonaa qof markuu bilaabayo qaabka uu xirayo waxa soo dhan marka si aan u bilowno waxaan ku celisaa essentials default-gi essentials ku noqonay waxaan u baahanahay marka inaan soo furfurno qaabka panelskan loo furfurayo waxay tahay click baa siinaysaa wax ku soo baxay panelkii meesha kore oo magaciisa ku qoran yahay baa qabanaysaa banaanka u saaraysa ka soo saartay kana sidoo kale soo saar kan sidoo kale magaca soo saar kana sidoo kale magaca soo saar kulli markaan soo wada saarno banaanka keenno oo kulligood banaanka soo wada dhigno waxaan ka dooran doonaa intii ina ka qosaysay aan uga baahnayn طبعا meesha faaruq way noqotay oo banaanladii oo dhan banaanka inoo yeeleen si aan banaanlada marka isugu xirxirno waxaan u baahanahay inaan fahanno qaabka isugu xirmayaan iyo meesha ay iskaga xirmayaan tusaale ahaan halka swatches baa ku jira waxaan rabaa inaan colors ka dhex geliyo waxaan qabanayaa meesha magaca halka ma qabanayo waxaan qabanayaa magaca swatches oo kale waa jiidaya wadaya dulgeynaya si fiican u fiiri waa dulgeynaya waxa ii soo baxaysa calaamad buluugan calaamadda buluugan waxay ka dhigan tahay meeshii aad u waday baa dhigtay ku sii daa haddaan ku sii daayo wuxuu noqon qaabku noqonaya fiiri si fiican fiiri wuu dhex gelayaa طبعا isaga ma dhex gelayo laakiin wuu ku biirayaayo waxay isku noqon fulayaan online waxay noqonayaan group wada socda sidoo kale haddaan u baahdo layerskaas iyagana halka ii soo dhig layerska waxaan ku soo darayaa waxaan kaloo iyagana ku soo darayaa layerska ku soo darayaa paths siyadana magacaan soo qabanaya waa soo wadaya sidii hore calaamadda buluugan oo kala qabanaya calaamadda buluugan markay ii soo baxdo highlight-ka buluuga si fiican u fiiri waa soo jiidaysaa marka highlight-ka buluuga ku soo baxo saasay wax u yihiin group markaan saa u taxnay labadaas waxaan kala u baahanahay marka adjustments iyagana adjustment iyo channel saddex gali waa channelka ka saar waxaan u baahanahay inaan wada channelka noqdar kan uma baahnin adjustment oo kale waxaan samaysanaa workspace waxyaro shaqo kooban lagu qaban karo properties no need kana sidoo kale uma baahnin kana sidoo kale uma baahnin marka waxa kale oo ka maqan aan u baahanahay wax loo yaqaan paragraph say ku soo helaa wax tagaysa Windows waxaa ka dooranaysaa meelaha paragraph ama character ka fiiri
dabcan waa soo helnay paragraph feature aragta labadii waa soo helnay waana waa socdaan. Si aan ugu darno marka kan aan dabada uga xirno waxaan u baahnayn halkaa qabatid soo wadid xagga hoose keenaysaa waxa ku soo baxaysa si fiican fiiri kortaa jeedid waxa ku soo baxaysa calaamad yaro buluugaas marka aragtid baa sii daynaysaa intaas waa soo kan xiranta. waxaan u baahannahay marka intaas inaan kan eedan dabada kaga saddexno sideedii oo kale soo qabo waxa magaca qaban maysa haddaan magac qabto qaakada ay soo baxaya laakiin waxaan qabanayaa meesha kore ay kulligood ka siman yihiin waa soo jiidayaa waxaan keenayaa meesha hoose ee aan u baahanahay meesha hoose ee kuwa aan rabo inaan ku taxo qaybtooda hoosan keenaya oo wadaya goortay calaamada buluugneed soo baxda baydin sii daynaya dabcan paneliskaygii qaabkaas ay isugu taxan yihiin. waxaan u baahanahay marka inaan ku sameeyo oo gidaarka ku dhijiyo gidaarka si uu dhijinaya marka waxaan qabanayaa meesha kore ee kulligood ka dhaxaysa waa jiidayaa waxa ii soo baxaysa si fiican u fiir wataan jiido gidaarka ku xayla moos gidaarku dhawaado waxa ii soo baxaysa buluug kale buluugaas waxay ka dhigan tahay Photoshop kula hadlayso kale sida meeshii loo baahnaa waa dhigtay waa sii deynaya dabcan gidaarku dhisan yahay saas oo ku samaysan yahay markaad saa u taxatid oo paneliskaaga iyo qaabkaad u samaysatay workspace-kaaga qaabkaad ku qanacsanayd geysatid waxaad u baahan tahay marka inaad save garaysid qaabka u save garaynaysaa waxaad tagaysaa Windows waxaad ka dooranaysaa workspace waxaad kasii dooranaysaa new workspace waxaan ka dhigaynaa tusaale save binary tusaale awalba hore ugu jiray ka noqo magac kale aan u bixinaynaa waxaan u bixinaynaa oo kale sambal workspace baan u bixinay kortaan qoraalka qorno oo kale aan save garayna sambal workspace la fiiro kaas hadaad u baahatid inaad ka gudubtid essential ku noqotid kaliya basinaysaa dabcan ku soo baxaya waxaan u baahanahay tusaale ahaan tii aan save garaysanay inaan ku noqono magaceedu wuxuu ahaa sambal workspace la fiiri wataan dabcan kore click waa soo baxay haddii ka waran qof kale computerka intuu isticmaalo Photoshop wax jijiido wax ka bedelo kan saa ka dhigo wixii oo dhan iga soo saaro doono kan iga kalooso ka xiro waxaan samaynayaa hadda waan imaado oo tusaale ahaan workspace ba kanaan doortay maaha kanaan doortay saas iyo baalka wareegaya inta banaanka taagan shaqadii qaabkan u dhistay oo waqti iga baxay oo kale qof iga tiray haddii aad rabtid inaad sidii hore ku celitaa ku save garaysatay markii horeysa waxaad tagaysaa iyada halkaa ka dooranaysaa tusaale sample workspace bay doon dooranay waxaan tagaynaa Windows waxaan kasii dooranaa workspace waxaad ka dooranaysaa marka reset sample workspace reset iyo magacii workspace-ka uu soo saaraya wuxuu click markaas siisid wuxuu kugu celinaysaa sidii hore markii u horeysay u save garaysatay click baan siinayaa dabcan workspace-ka way save garaysan yahay sidii hore wana igu soo noqday way reset garoobay marka qaabkaas ayaa loo dhisaa oo aad u dhisan kartaa workspace-ka u baahan tahay muhiimadda koowaad waxay tahay inaad soo kala saarsaari kartid paneliskaas kii kaa soo baxana meeshiisa ku ceshan kartid haddaad adu u baahatay workspace gaar kuwa oo gooni ku ana aad dhisan kartid intaad weeye inta base-ka workspace-ka iyo paneliska qaabka u shaqeeyaan aad soo xigtid una dhisan kartid haddaad ay kaa xumaatana ama ay kaa tirantana inaad reset garaysan kartid intaa weeye inta muhiimka ah marka muuqaalkan labaad intaas ayaan kusoo gabagabeyn doonaa muuqaalkan muuqaalka xiga waxaan kaga hadli doonaa oo aan xabad u qaadi doonaa toolska Photoshop ay ku shaqeyso halka ka muuqda dhinaca bidixda waa inoo iyo kulanti damo xiiso leh.